daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. iyadoo muddo bilooyin ay ka harsan tahay waqtiga kama dambaysta ah ee dawladda Kenya u qabatay inay xiri doonto xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa arintaasi waxaa ka digaysa hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo MSF. hay'adda ayaa ku doodaysa inay tahay in si degdeg ah xal loogu helo qaxootiga ku jira xeryaha Dadaab kuwaasi oo halis ugu jira inay waayaan kaalmada yarta ah ee haatan helaan. warbixinta hay'adda ayaa tilmaamaysa in 3 sanadood ee la soo dhaafay ay aad hoos ugu dhaceen qaxootiga iskood Soomaaliya ugu laaban jiray arintaasi oo ku soo beegantay xilli ay sare u kacday abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka Soomaaliya. dhanka kale hay'adda arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo UNHCR ayaa dadka gudaha Soomaaliya ku barakacay sanadkani ku tilmaamtay inay gaarayaan 731,000 oo qof. dadkaasi ayaa badankooda ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya. sidoo kale hay'adda Amnesty International ayaa warbixinteeda ku sheegtay in dastuurka dalka Kenya uusan ogoleen tilaabo kasta oo qaxootiga dalkeeda jooga lagu waxyeeleyn karo amaba looga rari karo gudaha dalka Kenya si aan sharciyeysnayn. ugu dambeyntii xukun ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya sanadku markuu ahaa 2007 ayaa ka mamnuucaya dawladda Kenya inay tilaabo kasta ay ku rari karto qaxootiga ay samayso. maxkamadda xukunkaasi ka soo baxay ayaa dhigaysa in sharci darre ay tahay dastuurka dalka Kenyana ay khilaafsan tahay in dawladda Kenya ay si lama filaan ah u xirto xero dhan oo qaxooti malaayiin ah ay ku nool yihiin iyadoo weli ay jirto xaaladii ay dadkaasi ka soo carareen ayna weli ka jiraan wadamadii ay ka soo tageen dhibaatooyinkii ay ugu soo tageen. lama ogo in tilaabada dawladda Kenya ay damacsan tahay ay noqon doonto mid suurta gasha amaba in ay qaadan doonaan wacyigelinada ay u soo jeedinayaan hay'adaha kale kuwaasi oo dawladda Kenya ka codsanaya inaysan gabi ahaanba xirin xerooyinka qaxootiga Dadaab oo ay ku nool yihiin malaayiin isugu jira Soomaali iyo qoomiyada kale oo ka soo barakacay dalalkooda hooyo. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. waad ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan ku dhufa like dhammaan baraheena runta news journal ee YouTube, Facebook iyo Instagram. hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share gareyso wararka xaqiiqada ku dhisan.